waxaan run ahaantii aan doonayaa aan dhaho markaan meelahan kale aan imaado shucuurtayda iyo qalbigayga aad baan u dareemaa nicmooyinka annaga aan haysano iyo sida aanan u tixgelinin ayaan dareemaa ayagana waxaan u sheegi rabaa ardayda oo hadda maanta hor fadhiyaan quraxda badan ee wejiyahooda nuur uu ka muuqdo wax dembi oo ilaahay aad ka gasheen ma jiro ilaahaygii annaga qaarkeenna dhegaha iyo indhaha iyo maad xibnaha siiyey qaarkeenna ka qaaday ilaahaygaasa mahad iska leh ilahay agtiisa waa ka wada simannahay wax dembi oo aad gasheen ma jiro sidaa ogaada sidiina sharaf ku qabtiin marka aniga xalay markii la ii sheegay arrintan meeshan ka dhacday aad baan oga xanuunsaday isla markiiba mashquul baan ahaa laakiin gaari baan soo diray oo biyoola ah oo hadda kolleyba wixii uu ka gaaray oo wuu damiyey oo meeshii garab buu ka noqday oo u noqday meeshii gubanaysay waxaan hadday uu ii sheegay macallinka waa ilaahay fadligii maadaama ilmaha marka ayada qaarkood ay ku jireen dormitoryga laakiin adi aysan waxba maqlaynin khatar bay ku sugnaayeen buu yidhi way u ka baxsadeen ma oshii ilaa wixii dabka ma maqlaayin siduu ku bilowday iyo wixii maaragtay markaa shanqaraye marka way ka baxsadeen buu yidhi waa fadli ilaahay waa mahad ilaahay in meeshii ilma aysan waxba ku noqonin ilaahay baa mahadda iska leh annaga haddaana mas-uuliin inaan meeshan oo kale imaano oo markaas aan bal duruufaha dhaceen aan la soconno iyo wixii aan ka qaban karno baa waajibna saaran ah marka hadda maanta waxaan ka gaarnay inaan un waxyar oo musaacado aan meeshan kula soo orodno oo furaashiya iyo waxoogaa cunto ah iyo waxoogaa bedsheet ah oo markaa wixii laga gaari kara maan la soo orodnay laakiin insha allahu tacaala hadda wixii ka dambe waxaan doonayaa iskuolkan iyo kuwa kaleba ee countiga ku dhex yaalla meel kasta ay joogaanba oo lamidka ah ama kuwo ka daranba hadda meeshan waxaa la ii sheegay waa un inta u badan yihin waa un dheef baa la ii sheegay meel inta ka hor waxaan soo maray oo Garissa primary ku taalo mar aan campaign samaynaye oo caruurtooda ay dhammaan yihiin mentally fully handicapped ragoo weyn oo la dhahay ilaa iyo 30 iyo qadar bay jiraan oo meesha waxaan ugu tagay pampas loo xiray aad baan u xanuunsaday aad iyo aad baan run ahaantii maartay u xanuunsaday in maartay macnaha ninka weynka ah oo saxaradii aan iska ilaalin karin kaadada aan iska ilaalin karin pampas loo xiraayo kolley ilaahay subxaana wataala isaga waa un caadil duruufahaas ilaahay ma hadda u celinaynaa ilaahayga keenay oo bixin karo marka iskuullada noocan oo kale ah oo hadda inkasta oo la dhaho national governmentiga ay hoos imaadaan laakiin anigu waxaan ballan qaadayaa manifestogan igu qornaa in insha allahu tacaala countigayga ay si fiican u ilaalin doonto u fiirin doonto oo miisaaniya u samayn doonto oo budget aan u samayn doono oo idaarad weyn ama xafiis oo aniga maaragtay xafiiskayga hoos imaado governors delivery department ka mid ah inay howlahan u istaagaan oo dadkaas ilaahay nagu dhex beere caruurta yarka ah iyo kuwa kale lamidka ee weynka ah oo duruufahan ay ku dhacday ilaan wax la qabano ayaan inaan xoog aan saaro aan doonaya insha allahu tacaala oo dhagool ay yihiin oo ilaahay qaadir raxmaanka maaragtay uu maaragtay xubintaa ka qaaday laakiin haddana waa same iskuullada la dhigto oo primaryga iyo secondaryga yani syllabuska iyo curriculumka waa the same isku si bay science u dhigtaan isku si bay physics u dhigtaan isku si maaragtay bay maaragtay sabida u dhigtaan yani oo markaas tartanka caadi bay u galaan oo weliba ay ku baasaan oo maaragtay oo meelaha qaar ay ku reeyaan waa arrin weyn oo lagu farxo weeyaan ilaahay kor ha ka yeelaan leenahay caruurtaas oo muxuu ahaa howlahan ay ku jiraan oo tacliinta allah u barakeeyo mustaqbalkooda iyo maxaan kuu dhahaa muxuu ahaa wixii ka dambeeya ilahay u barakeeyo insha Allah tacaala iniga raggiinan iyo gabdhaha
oo ayagana hawshan ku jira oo howlahan garab u ahna allah ina baraka insha Allah tacaala